kusoo dhawaada shabakada saddex ugu barateen inay noo soo gudbiso casharo xiiso leh oo ku saabsan IT-ga. Maanta waxaan rabaa inay tuso habka loo sameeyo show or hide password. Lagu ku dhisay luqadda isticmaalna waxa weeye VB.net-ka sida uu sameyn lahayd show or hide password. Marka ugu horeysa waxaan tagayaa startga software kadibna waxaan soo kicinayaa Visual Studio. Marka Visual soo furo kadib waxaa la file baa leeyahay new project aasaasanaya. New project marka taabto kadibna waxaan dooranayaa Visual Basic Windows application. Waxaan u bixinayaa show or hide waa magaca projectiga password. Okay, kadib projectiga ismisman waxay baa sugayaa marka projectiga uu soo baxo waxaan ku soo ridanayaa text box hal text box iyo waxaan soo gashanayaa hal button akuwana kan iweynay button-kan waxaan ugu bixisaa show kana click siinaya kadibna waxaa leeyahay marka waxa ka dhigay system wala ka dooranayaa password char true ka dhigayaa marka bal hadda fiirino qaabku noqday qoraalka wuxuu ka dhigay qoraal mask leh lama arko hadda waxa meesha ku qoran. Okay, marka haddaan rabno inaan soo bandhigo button-kan baa double click siinaya isaga furaya button-kan markaan furo waxaan ku qorayaa condition isticmaalaya marka waxaan rabaa button-kan magaciisa isbedelo qoraal ku qoran marna uu soo muujiyo xogta uu gudaha ku sido. Okay, waxaa leeyahay marka if baa qoraysaa text box 1 system char password uu kala mid yahay true hadduu la mid yahay haye waxa dhada marka then text box 1 system char password ku wuxuu la mid yahay false. kadibna waxa ka wax ku qoraysaa marka button-ka qoraalkiisa waxa ka dhigaysaa button 1 textigiisana wuxuu la mid yahay hide waa soo baxaysa. Okay, kadib marka hadda intaan aan fiirino si ay u shaqeynayso halkan qofka ku qoraal buu ku qoray kadib wuxuu yiri show taabtay meesha aan isbedelaysa bal fiiriyo halkan show qoraalka soo baxay kan waxay noqotay hide baa ku qormatay hadda taabto shaqeynayso marka koodka bedelay haddana marka click la siiyo uu ka dhigay mask badan hadda qoraynaa isla anagu barteena joogna waxa la leeyahay marka haddana halkan ls marka dhahay kadib waxa la leeyahay marka haddana text box 1 system char password equal true ka dhig button 1 na button 1 text waxa ka dhigtaa ku bedeshaa show ku bedel marka korku inta ugu muhiimsan waa intaan la qorayo kadib la aran gareyno soo noqonaya aragno. Okay, waxaan geliyay qoraal kadib waxa taabtay show wuxuu soo qoray hide qoraalka muusan geliyay kadib waxa taabtay hide wuxuu ka dhigay waxa la arkiirna mask leh halkaan button-ka muhiimka isku bedelay show hadda halka qoraalka qoraal ku daro kale sidii wada maanta soo saaraya hadda raacnay 1 2 3 wakaasa 1 2 3 buu soo saaray. Marka qaabka loo sameeyo guud ahaan show or hide password adoo isticmaalaya luqadda VB.net-ka waa qaabkan inta 10 lama ku kulmayno waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.